Assalaamu calaykum. Kani waa robot sida bini'aadamka oo kale u shaqeeya. Waa uu hadlaa, waxbuu arkaa, xitaa wax u yaqaanaa jilliinka sida aadanaha oo kale. Su'aasha isweydiinta mudan. Maadaama uu robotku samayn karo waxyaabaha aan kor ku soo sheegnay, ma qaadan karaa shaqooyinka aan ka shaqayno? Aniga, adiga, iyo dhammaanteen. Waa mawduuceena maanta. Ma jirto qof inkiri kara inay soo badanayaan robotyada iyo qalabka otomaatiga ah nolol maalmeedkeena. Waxaana tusaalooyin kugu filan kuwa yaala supermarketyada iyo wadooyinka waaweyn ee caalamka. Soo badashada robotyada waxay horseeda digniino cabsi leh iyo xogo badan oo ku saabsan mustaqbalka shaqada. Waxaana digniinahaas ka mid ah hadal uu yiri Elon Musk oo ah milkiilaha iskale shirkadda Tesla ee soo saarta gawaarida korontada ku shaqeeya iyo shirkadda SpaceX ee hawada sare shaqadeedu tahay. Waxa uu yiri robotyadu waxay awood u heli doonaan inay qabtaan wax walba oo inagu qaban karno. Daraasad madhow la sameeyay ayaa sheegaysa in 670,000 oo shaqo Mareykanka laga waayay intii u dhaxaysay 1990 ilaa 2007 sababtuna ahayd robotiska dartood. Tiradaasna way sii badan doontaa marka loo eego sanadada soo socda. Daraasad si ballaaran loo tixraacay oo la sameeyay sanadii 2013 ayaa sheegaysa in kala bar shaqada Mareykanka taala automatic laga dhigi doono 20 sano ee soo socota. Shaqooyinka u baahan soo noqnoqoshada iyo saadaalinta hawlaha ay ka mid yihiin safarka, logistikada iyo taageerada maamulka ayaa si gaar ah khatar ugu jiro inay shaqadooda bedelaan robotiska. Kaliya ka fikir, robotyadu ma baahna caafimaad, fasax iyo inay hurdaan, laakiin dooda ku saabsan in robotyadu la wareegi doonaan dhammaan hawlaheena weli sinaba looma xalin. Dhaqaaleyahano badan ayaa ku doodaya in shaqooyinka otomaatiga laga dhigaa ay abuuri doonaan shaqooyin cusub, waayo robotisku waxaa borograamiyay dadka. Tusaale ahaan, aan dib ugu laabano sanadii 1850 markaas oo tareenku ahaa wasiiladii ugu casrisan uguna caansaneed ee lagu safro. Shaqooyinka injineeriyadda tareenada, kuwa wadooyinka tareenada iyo shaqooyin badan oo la xiriira tareenada ayaa ahaa kuwa kor u kacay xilligaasi. Laakiin qarnigii 20aad waa ay yiraadeen sababtoo ah waxaa soo baxay gawaarida uu qof walba wadan karo. Laakiin shaqooyinka aan kor ku soo sheegnay beddelkooda waxaa galay matoorada gawaarida iyo samayntooda iyo shaqo walba oo la xiriirta gawaarida ilaa shaqooyinkii la xiriiray tareenada ay gabi ahaanba qarsoomaan. Taa mid lamid ah ayaa dhici karta markii robotisku suuqa yimaadaan ama suuqyada caalamka si rasmi ah u soo galaan. Sahmin ama sarfey laga qaaday ku dhawaad 20,000 oo qof oo dadka shaqaaleysiiyay kana soo jeeda 42 dal ayaa sheegaysa inay qaadan doonaan shaqaalaha yaqaana IT-ga, customer survey-ga iyo kuwa kale oo badan 2 sano ee soo socota. Way adag tahay in la qiyaaso in robotiska ay soo saari karaan astaamaha aadanaha sida dareenka iyo naxariista oo looga baahan yahay shaqooyinka qaar sida kalkaaliye caafimaad ama macallin. Laakiin xitaa haddii robotiska ay shaqooyinkaas qaadanaynin, cilmi baaris ayaa muujinaysa inay si weyn u bedeli doonaan hawlaha maalinlaha ah ee goobaha shaqada. Tanna waxay si gaar ah dhibaato ugu noqon doontaa shaqaalaha aqoonta hoose aan awoodin inay sii haystaan shaqooyinka cusub. Waxaa laga yaabaa inay ku saabto mushahar hooseeya. Taasina waxay keeni kartaa isku dheelitirnaan la'aanta dhaqaalaha dadka. Ma laga yaabaa in robotisku qaataan shaqooyinka dadka?